dhanka tiknoolajiyada iyo isbeddelka cusub ee dunida waxaa ka soo dhex baxay xirfado cusub. Xirfadihii horena waxa ay noqdeen kuwo laga tagay, kuwana hadda ayay ku sii socdaan in ay baaba'aan. Dunidu si joogto ah waxaa isku bedelayo qarni waliba xirfadaha uu bani'aadamka uu ka shaqeeyo. Tanina waxa ay ku xiran tahay horumarka bani'aadamka iyo baahiyihiisii. Muuqaalkani waxa aynu ku soo qaadan doonaa tiknoolajiyadaha casriga ah ee qasab ay ku tahay dhalinyaradu in ay bartaan si ay boos ay uga qabsadaan dunida cusub. Waxaa nolosha bani'aadamka si tartiiba maalin walba u soo galayo caqliyada macmalka, rabootyada, ganacsiyada online-ka ah iyo xirfadaha dunida afarteedii dhinacba dadka laptop oo kaliya ay kaga shaqeeyaan. Waxaase dhici karto in qof uu isdhaho haddii aanan baranin xirfadahani mustaqbalka maxaa igu dhici doona. Inkastoo jawaabta rasmiga ah aanan la qiyaasi karin, haddana waxaa la oran karaa dhalinyarada aanan xirfadahani casriga ah aanan baranin waxaa laga yaabaa in ay ku adkaato in ay tartan ay ka galaan suuqa shaqada ee mustaqbalka. Waxa ayna sida dhalinyaradu ay ku weyn karaan fursado badan oo shaqo. Qofka sida uu hadda xamaaligiisii isagaga wato marka ay booskiisii makiinado ay bedelaan isaguna uusan lahayn aqoontii makiinadaha, waa xilliga uu muuqaalkani qofka dhalinyarada ah dareen xaqiiqi ah uu ku fahmayo. Waxaase xaqiiqa ah shaqooyinka maanta dunida ka jiro waa kuwo sanado badan sii jiri doona, balse qiimaha lacagta lagu shaqeeyo maalinba maalinta kasii dambeysa sida ay hoos ay ugu sii dhici doonaan. Ugu dambeyn qof qabtaa ayaa la weyn doonaa. Sida qowsaarka oo kale, qowsaarnimadu waa shaqo bani'aadamka intii uu jirayba iyaduna jirtay. Waliba qowsaarnimadu waa xirfad nolosha qaybaha aasaasiga ku jirta. Soo gelitaankii bani'aadamka ee magaalooyinka kadib, xirfadahani qowsaarnimada maanta waxaa wadamada qaar xitaa ku adag in ay helaan qof dhalinyaro ah oo qowsaarnimada ka shaqeeya. Bulshada dhexdeediina qowsaarku darajo qurux badan kuma dhex laha. Sidani oo kale ayay xirfadaha maanta dad badan ay ka shaqeeyaan mustaqbalkoodii uu noqon doonaa kuwa aan bulshada dhexdoodii qiimo aanan ka lahayn, ama xirfado sida qowsaarka oo kale oo aad loogaga cararo. Xirfadaha mustaqbalka ee dhanka tiknoolajiyada dunida cusubna waxaa ka mid ah inkastoo ay badan yihiin. Tusaale ahaan sida saynisyahanada xogta oo kale. Saynisyahanadani waxa ay shaqadoodii ay tahay in ay ururiyaan macluumaadka dadka, daatadoodii iyo in ay analyse gareeyaan caqliyada macmalka. Makiinaduhu waa dad takhasuskoodii uu yahay. Saynisyahanadani xogta ama daatada ururiya waxa ay shirkaduhu ay ka caawinayaan in ay go'aamo ay gaaraan shirkadaha iyaga oo xogtani isticmaalaya si fiican. Marka ay saynisyahanadu xogta ay u soo analyse gareeyaan, tanina waxa ay u baahan tahay in qofka xisaabta in aad u yaqaano. Xisaabaadka iyo cilmiga kombiyuutarka gaar ahaan inta laga maarmaanka u ah ururinta xogta, nadiifinta xogta yacni isku shaandhaynteedii iyo algoritmkeedii, statistics-ka iyo faalaka bixinta xogta aad ayay shirkaduhu muhiim ay ugu tahay. Laga yaabay inaad isdhahdo qodobkani ma aanan fahmin. Problemka faham la'aantuna waa in mawduucyadani noloshaadii qayb yar xitaa inaysan ku jirin. Tusaale, saynisyahanada xogta ama saynisyahanada daatada ururiya waxa ay la shaqeeyaan shirkado kala duwan iyaga oo isticmaalaya xogtani ay ururiyaan. Waxa ay shirkaduhu ay ka caawinayaan in ay go'aamo ay gaaraan. Xogtani ama daatadanina waxa ay ka kala imaadaa ila kala duwan, waxaana loo isticmaali karaa siyaabo kala duwan. Tusaale ahaan sida suuqgeynta oo kale, shirkaduhuna waxa ay xogtani ay u isticmaalaan dhinac waliba hadba sida ay saynisyahanada u soo falanqeeyaan, taas oo la xiriirta rabitaanka macaamiishoodii ama nooca macaamiisha ee shirkadda ku habboon, suuqgeynta badeecadaha ee shirkadda iyo macaamiisha shirkadda ku habboon si daatadani iyada oo la isticmaalayo target looga dhigto. Haddii aynu tusaale ka soo qaadno qof ganacsi haysta sida uu xogtani ugu baahan yahay iyo saynisyahanada xogtani falanqeeya, qiyaas ahaan waxa aad iibisaa dharka carruurta yaryarka ah waa tusaale oo keliya. Nooc waliba oo ganacsi ah ayaana tusaale loo soo qaadan karaa. Maadaama aad iibiso dharka
carruurta yaryarka ah si uu ganacsigaadii uu u hormaro. Booska shirkadaha haddii lagu dhigo, waxaad u baahan tahay in aad soo iibsato data aad weyn, adiga oo kaashanaya aqoon-yahanada daatada ku takhasusay. Muxtamalanna daatadani waxa aad ka soo iibsan doontaa ama laga soo ururin doonaa hosbitaalada. Dumarka uurka leh si joogto ah waxa ay tagaan hosbitaalada ilaa ay ka dhalaan. Xogta dumarkaasi uurka leh, magacyadoodii, deegaankoodii, canuga ay caloosha ay ku wadaan, gabar ama wiil, nambaradoodii ama iimayladoodii oo dhammaystiran iyada oo daata ayaa qofka hosbitaalka uu ka soo qaadan karaa. Haddii hosbitaalka uu yahay hosbitaal daatada dadka ka ganacsanaya, ama qofka siyaabo kala duwan ayuu daatadani bulshada dhexdeedii uga soo dhaxruursan karaa. Kadibna qofkani carwada ku iibiya dhanka carruurta yaryarka ah. Marka uu daatadani uu helo, waxa uu hadaf uu ka dhiganayaa dumarkani in emailkoodii uu ugu diro nooca dhanka uu hayo, haddii jumle ay yihiin, haddii tafaariiq ay yihiin. Sidoo kalena daatooyinka noocani oo kale ah waxa ay isugu xirxiran yihiin qaabab qofba qofka kale uu dhow yahay. Gabadha uurka leh, dumarka kale ee ay la xiriirto, kuwa ay qaraabada yihiin ama kuwa dariskoodii ah ee daatadoodii aqoon-yahanka uu hayo, ama qofka carwada ka shaqeeya ee dhanka dumarka iibiya. Daatadani marka uu haysto dhammaan kambeynka xayeysiiskiisii, dadka uu taargetka uu ka dhigan doono si ay dhankiisu ay uga iibsadaan waa isaga oo daatadani isticmaalayo. Daatooyinka noocani oo kale ah maadaama ay isugu xirxiran yihiin, hadba qofka kale ee uu dhow yahay. Gabadhani uurka leh, tusaale ahaan gabar ina adeerteedii ah oo ka warqabtaa in saaxiibteedii uur in ay leedahay, ama qofka darajada sida aadka isugu dhow, ayaa si fudud emailkeedii ama internetkeedii waxa ay ku arkaysaa iyada oo waxba aanan kaban qabin dhar raqiis ah oo loogu talagalay carruurta xilliga umusha ka soo baxay. Durbaba xayeysiiskaadii marka ay aragto, maadaama taarget aad ka dhigatay dadka xiriir kala leh dumarka aad daatadoodii aad hayso, si degdeg ah waxa ay u badan tahay in ay ku dhufato dhankaadii, maadaama saaxiibadeedii xilli aad u dhow kadib ay dhali doonto. Sidaasina xayeysiiskaadii waxa uu u badan yahay in dad badan ay wax kaa soo dalbadaan. Systemkani haddii ganacsaduhu ama shirkaduhu ay maraan si degdeg ah, macaamiil aanan dhammaad lahayn ayay ku kasban karaan. Sababtoo ah waa dad daato oo dhan gacanta ku haysta. Meel walba oo ay tagaan, iyaga oo ka warqaba halka ay joogaan ayay go'aan ay gaaraan. Halka dadka kale ee dunida aanan fahamsanayn, dukaan ay iska furtaan subaxii, galabtiina iyaga oo waxba aanan kala ogeyn, xitaa iyaga oo waxba aanan laga iibsanin albaabada isugu dhuftaan. Tanina waa tusaale aad u fudud oo qaab Soomaali oo kale aan ugu dabaqnay, balse dunida kale qaababkani iyo qaabab kale oo ka horumarsan ayay shirkaduhu daatooyinka ay u isticmaalaan. Shirkadaha iyaga ayaa kala yaqaana nooca macaamiishoodii, qofka hadafka u noqon doona, dabeecadaha qofka macaamiilkooda iyo teknikyada ay qofka macaamiilka ah ay ku qancin karaan. Mar haddii dunida dhanka iyo tiknoolajiyada ay u janjeerto, dadkuna tiknoolajiyadu ay wax walba ay kala socdaan, sanadba sanad ka xiga tirada isticmaalayaasha internetkuna ay kordhayaan, daatada iyo saynisyahanada falanqeeya xirfadoodii mustaqbalku waa mid si aad ah loogu baahan yahay. Maanta platformyada online-ka ah lacaga raqiis ah ayuu qofka daatada uu doono uu ku soo iibsan karaa. Dadka aanan inta badan daata aanan danayninna waa botansiyelka dadka sida joogtada ah hadafka u noqda ee aanan is-ogeyn. Tusaalahanina qaybta xayeysiiska oo keliya ayuu quseeyaa. Saynisyahanadu daatadu sidoo kale dhanka iyo maaliyadda ayay daatadani u adeegsan karaan. Keliya kuma koobna isticmaalka daatadani dhanka iyo suuqgeynta oo keliya. Warshadaha iyo shirkadaha waaweyn ee maaliyadeed waxa ay adeegsadaan hababkani xogta si ay u gaaraan go'aanadoodii maalgashiga iyo in ay ka fogaadaan khatarta soo wajihi karta. Khiyaanada suuqa ka jirto iyo macluumaad tiro badan ayay bilowgii ogaan karaan. Sidaana shirkadaha maalgashiga iyaga oo khatarahoodii ka taxadiray ayaa waxaa u sahlan in go'aankoodii ugu dambeeyay in ay qaataan. Haddii qaab Soomaaliya oo kale aan u dhigno, dadku waxa ay ganacsi ay furtaan maanta iyaga oo fakhri ka ah daato oo dhan. Qofka haddii $2,000 uu haysto,
durba waxa uu ku fakarayaa in uu ganacsi uu samaysto waliba nooca ganacsiga ee tartanada badan loogu jiro ayuu qofka maalgashi uu ku samaysanayaa heerka qofka riskiga uu qaatay iyo waxa uga soo noqon doona ganacsigiisii faa'iidadiisii isaga oo wax daata ah aanan ka haysanin ayuu ganacsi toos ah u iska furtaa hab taqliid oo kale maadaama uu u sameeyey natiijo foolxun ayay boqolkiiba 90 u badan tahay inuu kala kulmo halka shirkaduhu ama dadka ganacsiga yaqaana inta ay ganacsiga gelin ka horba aqoon-yahanadu daatadu ay la fadhiistaan iyaga oo dhinacyo kala duwan wax ka fiirinaya kaba soo qaad qofkani tusaale ahaan in aan Soomaali ahaan u dhigno in qofkani ganacsadaha ah ee lacagta haystaa in uu ku fakarayo in maktabad buugaagta lagu iibiyay in uu furto aqoon-yahanadani daatada haya ama daatada ururiya marka uu qofka uu la kaashado waxa ay qofka ay u sheegayaan deegaanka uu ka furi rabo maktabada dadka ku nool sida ay akhriska isku yihiin dad cilmiga u janjeeramiya dadka deegaanka heerka maaliyadoodii dhaqaalaha celcelis ahaan dadka soo gala dadka deegaankaasi ku nool xiriirka buugaagta iyo aqoonta kala dhaxeeya waxa ay dadka deegaanka ku nool ay iibsadaan iyo waxa aysan iibsanin heerka akhriskoodii ee maalintii yacni saacadaha wax akhriskoodii kaga baxa daatadani oo meelo kala duwan laga keenay ha noqoto dhanka iyo social media xog laga soo ururiyay ama ha noqoto mid ka waji dadka loogaga soo ururiyay ama siyaabo kala duwan sida qaabka daatada loo soo ururiyayba marka aqoon-yahanadani loo keeno systemkoodiina ay geliyaan shirkadii rabtay in maktabad ay furto waxaa xilliga u kala cadaanayo dhaqaalaha halkani kaga baxayo iyo faa'iidada uga soo noqon karto celcelis ahaan inta ay noqon karto iyo inta sano kadib ama inta bilood kadib faa'iidada iyo khasaaruhu hadba xisaab ahaan inta ay u gudbi karto kadib ayana shirkadda go'aankeedii ugu dambeeyay in ay maalgashan doonto ama in aysan maalgashan doonin ay qaadataa kaba soo qaad haddii aqoon-yahanadu marka ay daatadu ay qiimeeyeen jawaab positive ah haddii ay u soo baxdo maktabadana si degdeg ah haddii loo dhiso waxa ay maktabada ay u badan tahay boqolkiiba 90 in ay noqoto mid dhalinyaradu waqtigoodii intoodii ugu badan ay ku bixiyaan balse xogta daatadani natiijadeedii haddii mugdi uu ku jiro maalgashigaasi haddii la sameeyo waxa ay ka dhigan tahay mid lagu khasaari doono balse qofka isaga oo waxba aanan kala ogeyn haddii dhinacyadiisii uu fiiriyo maktabad la'aan in xaafadda ay ka jirto haddii durba uu sabirto sidaana maalgashi uu ku sameeyo waa in uusan eed ka dhiganin bulshadani aqoon ma lahan ama buug ma akhriso iyo waxyaabo badan oo eed u noqon kara sida asalka midka aanan waxba akhrinin waa kan maalgashiga sameeyey isaga oo indhoola nasiib daro Soomaaliya daatadeedii aad ayay u sahlan tahay in la ururiyo balse waxaa yar dadka laamahani ku baraarugsan in ay waqti ay geliyaan amaba ka shaqeeya wadamada casriga dowladahoodii ayaa aad uga taxadara in daato oo dhan in dadkoodii laga ururiyo balse daatadani faa'iidada ka imaan karta iyo ururinteedii marka la isku barbar dhigo waxa uu arki karaa qofka awoodda dunida ka jirta oo dhan inteedii badan in daata ay tahay sidoo kale laamaha kale ee daatada loo adeegsado waxaa kamid ah dhanka iyo caafimaadka laamaha caafimaadka hosbitaaladu waxa ay adeegsadaan daatadani si ay si fiican ay ugu fahmaan cudurrada qofka bukaanka ah si ay laamahani caafimaadka xog ay u soo saaraan ama xaaladda bukaanka ay wax uga ogaadaan hosbitaalada badankoodii gaar ahaan kuwa waaweyn qofka kombiyuutar ayaa magaciisii nambarkiisii nooca dhiiggiisii nooca cudurrada iyo natiijada cudurka ayaa lagu keediyaa tanina hosbitaalada waaweyn oo dhan waa meel daatada ay ugu keedsan tahay bukaanka haddii dhowr jeer hosbitaalka uu ku soo noqnoqday magaciisii ayaa ku filan dhakhtarka kadibna dhammaan cudurrada uu qofka uu ka caawinayo shaashada ayuu dhakhtarka uu ka arkayaa haddii magaciisii kombiyuutarka lagu qoro kadibna xanuunada sida rasmiga qofka u hayo ayuu dhakhtarka si degdeg ah uu ku fahmayaa daatadani dhinac marka ay ka qayb qaadanayso
caawinayso in qofka caafimaadkiisii in si fiican loo daryeelo. Waxa ay sidoo kale dhakhtarka ay ka caawinaysaa daatadani in qofka uu fahmo sida dhabta ah nooca xanuunka ee hayo. Waxaa laga yaabaa dhowr jeer in hosbitaalka uu ku soo noqnoqday qof ka caawinaya in keli un ay xanuunto, balse daatadani iyo soo noqnoqoshadani tirada badan marka uu dhakhtarka uu indhihiisii uu wada saaro, wax uu ogaanayaa xanuunka uu qofka uu ka sheeganayo xanuun kale oo ka baxsan oo sabab u ah xanuunka uu sheeganayo in uu jiro. Sidaana dhanka iyo bukaanka marka ay u fiican tahay, haddana dhanka iyo lacag ka samaynta daatadanina meelaha qaarkood in hosbitaal laga furo aad ayay ugu fiican tahay. Tusaale ahaan sida nooca daawooyinka ee hosbitaalku uu u baahan yahay, daawooyinka inta badan la isticmaalo ee hosbitaaladu ay iibiyaan iyo teknikyo badan oo hosbitaalka ku saabsan ayay daatadani ka caawin doontaa. Haddii hosbitaal cusub magaalo la rabo in laga furo, daatadani ayaa muhiim u ah hosbitaalka cusub ee halkaa laga furi doona. Cudurrada ugu badan ee deegaanka hosbitaalka cusub laga furi doona bulshada ku nool ay ka caawadaan nooca dhakhtarka ay u baahan yihiin iyo daawooyinkoodii. Marka wax walba laga ogaado, hosbitaalka isaga ayaa go'aan ka gaaraya nooca cudurrada ee uu qaabilo iyo nooca qalab iyo nooca daawooyin ee halkaa uu keeni doono. Intaa kadib, baahida bulshada, dhakhtarkii iyo hosbitaalkii oo wada yaqaana ayaa deegaanka laga dhaqangelin doonaa. Hosbitaalkaasina mid aanan dhulka dhicin ayuu si joogto ah uu ku noqonayaa. Laakiin deegaan aanan wax caruur ah aanan ku noolayn, haddii hosbitaalka caruurta dhakhtar uu ka furto, problem weyn ayaa ka imaan kara. Inkastoo mawduucyadani dhaqaatiirtu aysan ku qadamin, haddana daatadani aad ayay muhiim ay ugu tahay. Waxaa sidoo kale daatadani loo isticmaalaa xagga iyo logistiga, halka baqaar kambani u noqon kara wadooyinka iyo suuqyada kala duwan. Xagga iyo tamartuna shirkadaha daatooyinkani ayay u isticmaalaan. Qasab ma aha meel walba shirkaduhu in matoor ay ku rakibaan, iyaga oo heerka cimilada deegaanka dhinacyo kala duwan qiimeyn ku samayn kara. Si raqiisa ayay shirkaduhu energy aad u badan ay ku soo saari karaan, faa'iidadeeduna aad ayay shirkaduhu u kordhaysaa. Tusaalooyinkanina waxa ay muujinayaan qaybaha iyo mawduucyada kala duwan ee daatada saynisyahanadu iyo sida ay muhiim ay ugu tahay. Bani aadamka maanta daata la'aan waa sida qof indhool oo kale ah. Dunida maanta waxba ma ay kala socon karaan daata la'aan. Sidaasi darteeda, falanqeeyaasha daatada ama aqoon-yahanada ku takhasusay daatooyinka iyo kuwa daatada ururiya kadibna iibiya aad ayay nolosha muhiim ay ugu yihiin. Waa dad wadan waliba loogaga baahan yahay. Aqoon-yahanadani daatada shaqooyinkoodii wax ay u adeegsadaan luuqadaha barnaamijyada kombiyuutarka sida Python, R, xog ururinta, SQL iyo laamo kala duwan oo kombiyuutarka iyo tiknoolajiyo kale oo iyaga u gaar ah oo daatadani ay ku qiimeeyaan micnana ay kaga soo saaraan ayaa jirto. Waayo daatada magac iyo number iyo xog aad u kooban, qofka haddii uu haysto wax badan oo micnaha suurtagal maaha in uu kala soo baxo. Waxaa loo baahan yahay xogtani kooban in qofka micno la taaban karo, dhaqaalana laga samayn karo in daatadani uu ka dhex akhriyo. Daatadanina laan lagu takhasuso oo si gaar ah maadaama ay tahay, waxaa loo baahan yahay dad waqti badan geliya ee falanqayn kara. Inta badanna saynisyahanadani xogta waa dad lagu tababaro maadooyinka xisaabta, tirakoobka, statistics-ka, falanqaynta xogta iyo luuqadaha kombiyuutarka. Miishaanka ay ku shaqeeyaan saynisyahanadana hadba dunidu waa ay ku kala duwan yihiin, iyada oo hadba lagu saleynayo khibradoodii iyo goobta xogtani laga soo ururiyay iyo warshada saynisyahankani xogta uu ka iibsanayo ama shirkadda uu xogta u falanqeynayo. Si kooban, celceliska miishaanka saynisyahanadani marka Mareykanka oo keliya laga hadlo waxa ay u dhaxaysaa sanadkii 120,000 ilaa 100,000 oo dollar. Sanadba sanadka xigana baahida loo qabo oo aad u sii kordhaysa. Aqoon-yahanadani miishaankoodiina aad ayuu u sii kordhayaa. Waayo daatadani wadamadu waxa ay ugu kala duwan yihiin. Dalalka horumaray dadka ku nool heerka isticmaalka internetkoodii iyo heerka dhaqaalaha soo gala iyo sida ay ugu janjeeraan in ay wax iibsadaan marka loo barbar dhigo kuwa wadamada kale ee aadka saboolka u ah ku nool. Waxaa in badan dhaqaale gacanta ku hayo, dhaqaalana laga samayn karaa kuwa wadamada horumarsan ku nool. Sidaasi darteeda isku mid ma ay noqon karaan wadamo kala duwan daatooyinka laga soo ururiyay.
warshadaha sida tiknoolajiyada, dhanka iyo maaliyadda, daryeelka caafimaadka, ganacsiga iyo warbaahintaba. Xogtani in ay iibsadaan loona falanqeeyo aad boqolkiiba boqol jiritaankoodii ayaa ku tiirsan. Saynisyahanadana maanta waa kuwa si gaar ah dunida looga baahan yahay. Aqoon-yahanadani ma aha shaqsi oo keliya, waxaa maanta jiro shirkado badan oo xogahani oo keliya ka ganacsada. Shirkadahani xogta ururiya, falanqeeyana, sidoo kalena sii iibiya. Waxa ay heleen maanta maalgelin aad u badan heerka loo baahan yahay darteedii. Tusaale, shirkadda daatada ururisa sidoo kalena falanqeysa ee fadhigeedii Mareykanka uu yahay ee Planter waxa ay soo baxday sanadkii 2020 oo keliya, waxa uuna hadda qiimaheedii u gaaray ilaa $20 bilyan. Qiimahani iyo heerkani sare u kaca waxa uu ku tusayaa baahida weyn ee shirkadaha noocani oo kala loo qabo iyo saynisyahanada shirkadahani u shaqeeya. Daatooyinkani waxaa laga soo ururin karaa ilo kala duwan, kombiyuutarada iyo applicationada internetka lagala soo degay ee wax ururiya waa kuwa ugu badan ee dadka xogtoodii iyaga oo aanan ogeyn urursada. Saynisyahanadu xogta waxa ay daatadoodii in badan ay ka ururiyaan ilo xogeedyo kala duwan. Xogtani falanqaynteediina waxa ay ka soo saaraan micno la taaban karo oo lagu dhaqaaqi karo. Ilaha guud ee daatooyinkani lagu ururiyana waxa ay si kooban ay u noqon karaan internetka. Internetku waxa uu leeyahay ilo xogeedyo kala duwan, tusaale ahaan platformyada social mediaha, website-yada iyo applicationada ayaa kamid ah goobaha saynisyahanadani iyo kuwa ka shaqeeya data ururintuba si aad ah ay u isticmaalaan, xoogna ay saaraan. Applicationo dadku si aad ah ay u daneeyaan, jecel yihiinna in ay isticmaalaan iyaga oo free ah ayay internetku ay soo dhigaan, balse gadaal dambe daatada ay heli doonaan ayaa ka badan faa'iidada haddii lacag ay ka dhigi lahaayeen. Sidoo kale waxaa kamid ah goobaha xogta laga ururiyo sensorada dareemayaasha. Dareemayaashu waa aaladaha wax xisaabiya, qiyaasna ka bixiyo xilliyada kuleelaha iyo qaboobaha. Aaladaha traafikada iyo aaladaha guriga ee smartiga ama qaaca guriga marka uu dab uu ka dhasho intoodii badan saacadaha dhawaqa bixiya. Saynisyahanadu waa meelaha ugu badan ee xogta ay ka ururiyaan. Si kooban, goob walba oo technology ku shaqeysa ee sidoo kalena smartia waa goob data ururisa. Sidoo kale aaladaha mobiladuna waa kuwa aan kuu soo sheegay ee applicationada ah, balse applicationadu kaliya ma ay ururiyaan xogta qofka, waxa ay sidoo kale ay ururiyaan dabeecadaha qofka, xilliyada uu firaaqada uu yahay iyo xilliyada uu mashquulka uu yahay, iyo guud ahaan waxa uu internetka uu ka qabto. Daatadani aaladaha mobiladu ay ururiyaan si guud waa profiilka shaqsiga isticmaalaha oo dhan. Sidoo kale waxaa kamid ah qaababka xogta loo ururiyo in qofka su'aalo toos ah in la weydiiyo, in laga codsado sida in form uu buuxiyo. Badanaa jaamacadaha, iskuulada, seminaarada, meelo kala duwan ayaa waxaa ku arki kartaa dad iyo waraaqada wata ama xitaa wadooyinka kuwa oo kaa codsanayo in ay su'aalo kooban ay ku weydiiyaan kadibna aad uga jawaabto. Sida tusaale ahaan, nolosha ma ku qanacsan tahay? Mishaarka ku soo galo qiyaas ahaan ilaa intee ayuu u dhaxeeyaa? Su'aalahani iyaga oo website ku qoran ama iyaga oo waraaqada ku qoran ayaa inta badan ku arki kartaa meelo kala duwan. Haddaba xog ururintu waa wax aad u fudud oo la samayn karo, inkastoo wadamadu hadba sida uu xeerkoodii u kala adag yahay, marmarka qaar qofka dembi weyn uu ku mutaysan karo. Hadba wadanka uu qofka xogta uu ka ururin rabo, waxaa jira meelo badan oo xogtoodii ay aad u sahlan tahay in qofka uu urursado. In laantani lagu takhasusana faa'iidooyin aad loo mahdi ayay mustaqbalka ay leedahay, mid gaar ah oo shaqsiga iskiisii ugu faa'iidi karo, ganacsigiisii iyo noloshiisii uu ku horumarsan karo, iyo tilaabooyin walba ee uu qaadi doono si baaraan degsan ee caqli ah in uu qaado, iyo mid kale ee guud ee dhaqaale uu ka samayn karo ayuu ka faa'iidayaa. Laantani ku takhasusida daato ururinta iyo falanqaynteedii waa laan aad u muhiimsan, balse bulshada badankeedii iyaga oo arkaya maqlayana faahfaahin maadaama aysan ka haysanin maba ay daneeyaan. Xirfadaha kale ee muhiimka ah ee nolosha wax ka bedeli doonana mustaqbalka muuqaaladeennii dambe ayaan ku soo qaadan doonaa haddii uu eebbe raali ka noqdo.